kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliland daawadayaal sida aad la wada socotaan Soomaaliland tan iyo intii xornimadeeda ay dib ula soo noqotay sanadii 1991 waxa loo soo maray la soo noqoshada xornimadaasi halgan dheera oo mood iyo nool markaasi loo hulay iyagoo dadkii halgankaasi ka qayb qaatayna ay ku suntan yihiin taariikhda Soomaaliland haddaba dadka sida weyn halgankaasi uga qayb qaatay ee markaasi hab suugaaneed oraaheed iyo markaasi hab dagaalba uga qayb qaatay waxa ka mid ahaa mujaahidkii weynaa Allah u naxariistay fanaanka ah ee Maxamed Mooge Liibaan Maxamed Mooge Liibaan waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee heesahooda iyo suugaantooda inta badan lagu dagaalgalayay bisha June 4teedii ayaa Allah u naxariistay uu geeriyooday markaasi Maxamed Mooge Liibaan oo ku beegan sanad guuradii 27aad ee ka soo wareegtay waqtigaasi uu geeriyooday filimkan ayaan ku eegi doonaa haddaba taariikh nololeedkii marxuumka waxaana taariikhdaasi aan ku wareejin doono si aad inooga warrami doona Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo markaasi ay marxuumkana aad saaxiib u ahaayeen qoraayada Soomaaliland kamida si weynna taariikhdiisa u haya waxaan eegi doonaa bal Cabdiraxmaan sidoo uga warramaya suugaantaasi marxuumka محمد موجة ليبان أبيه وحوها موجة ليبان ولو يقاني موجة بابن عبادة حاج محمد بعد شيء فنان كيعان كهاي كلا أحمد موجة أيه ولا لهاين كيسي يصفيا أيه ولا لهاين وحي حقه هيك ولا لهاين عاش باشة كل شيء مجال ده هرجيسا لجود لي مالود حيسا واره يدق حبور أفرتي بشيتون كل يسقال بقول يا أفريس ديتكي محمد وحكو برباري من عام القرآن تيسي كجلي تكسيدي سي هوسة يكوي دحبة وكجلي مجال ده هرجيسة يسوى كب حي دوكسيجا أحمد جوري وقت كوسنا كون يسقال بقول يكوبي لحدكي لبس النضود وتجي مع توبر مع النمو دوكسيجا عمود ولا قلت توبري تري معلمين تا dabeedna 1904 bilaabay inuu noqdo macallin isagoo ka bilaabay iskuulkii elementary-ga ahaa ee ku yaalay Daami Maxamed wuxuu noqday fanaan wuxuu noqday nin hal abuur ah wuxuu noqday mulaxin wuxuu noqday nin music tuma wuxuu noqday kuwa loogu jecel yahay ilaa maantana loogu jecel yahay fanaaninta Soomaaliyeed ee heesta Maxamed Jila ayuu noqday markii dambena halgamaa uu noqday naftiisii uu horay halgankii dib u xoreynta qaran filimkan kooban waxaan ku eegi doonaa taariikh nololeedkii curintii iyo hal abuurkii Maxamed Mooge Liibaan waxa jirta waa hibi ilaahay uu siin karo waxaad bilaabi karta ma oo waxaad u dhalan karto waxay tahay bilowga istamaantii ugu horreysay Yuusuf Ismaaciil Khalafin la yidhaahdo macallina يا كوني سجال بقولي أفريقيا كله إن أنا بقول إلى من تريق كتير يجي منك قاعدة محفوظة وحسيني يا أفريقيا يدور تعقلي يدور تعمل ممتحضات أنا كي بعطي هذا وحقوق هذا سهايك النار وضع يمينك في يدي وضع النجاح التي تلا قد وابتدي فغير ما مريوها في مضمعا كالورجوا نبكي غيري وحجانا dadka u sheego Maxamed Mooge intii taqaanayna way taqaanaa inta taqaanaana waxa ku waajiba inay waxay ka taqaanay Maxamed Mooge ay umada kale gaarsiiso محمد موجة وحنا نسبرنا كوريا سجال بقولي الله بيه تطبعتنكي مرة رواية كان المعلمين سيدي وكمدها مقالة مقدشو إلى جبل نورشيسة محمد موجة أنت بدن وإسكور هيني أما ميلبان ولا تشوفني لقن كيسو محمد موجة وحوها للنفتي سوها وين حرقة بدن حرقة ديسا iyo hanweenidiisu maasooyin iyo gabayo jira oo rag leeyahay rag kala duwan leeyahay bay ku soo arooreen nin naftiisa u hanweyn oo aan dhacdhaca oo aan hunguriga
u shaqaynin wuxuu ahaa nin hayalsan oo dabeecad wanaagsan oo marka si walba loo eego ka hufan turxaanta iyo ciladaha bani aadamka ku noqda dhaliilaha waaweyn ee marka dambe maaragta saameeya noloshiisa wejigiisa had iyo goor maxamed mooge waxaa ka muuqan jirtay weji furan buu lahaa farxad baa ka muuqan jirtay heelanaan baa ka muuqan jirtay wejigiisa maxamed mooge liibaan waqti ku sinaa dhowr iyo lixdankii ayuu soo galay caalamka fanka heestii ugu horreysay ee uu radio hargeysa ka qaado maxamed cumar huuriyo ayaa lahaa hees music lagu tumayo maxamed mooge liibaan heesihiisu inta badan kamay bixi jireen idaacadaha soomaaliyeed isagoon idaacad soomaaliyeed ka heesin oo ay fara ku tiris yihiin heesihiisii galay radio muqdisho iyo radio hargeysa maxamed wuxuu ahaa dadkii caanka ku ahaa ama ku caanbaxay inay rikoodhada ku heesaan inta badanna wuxuu qaadi jiray heesihii cabashada ahaa heesihii tabashada ahaa heesihii guuxa ahaa ee muuqaalka u muuqday inay heese kalgacal yihiin haddana ay dadku kaga cabanayeen waxyeeladii cadaadiskii iyo xasuuqii nidaamkii kelitaliska ahaa ee maxamed siyaad barre maxamed mooge fankiisa haddii aan isna laba kelmadood ka idhaahdo wuxuu lahaa cod luxdan oo legdan labada kelmadood iyagu saasay isugu lifaaqan yihiin malaa waa codadka ugu quruxda badan marka labadaa kelmadood ay isu raacaan maxamed mooge liibaan heestii ugu horreysay ee uu idaacad u qabto waxayd mahiigaan waa 1968 waa radio hargeysa heesta mahiigaan midhaheeda waxaa lahaa maxamed cumar huuriyo maadeeyihii caanka ahaa hal abuurkii waxaa laxanka sameeyey rashiid bullo heestaas ayaa ugu horreysay maxamed mooge liibaan heesuu idaacad ka qaado maran calayta soo soon muxibada la sarakacay